waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka fiid wanaagsan oo idin soo jeediyo aniga ah Saciid Gadaf Galeer qodobada aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah kulan uu baarlamaanka Soomaaliya yeelaha maanta oo baaqday Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya oo booqday Jigjiga iyo AMISOM oo dafirtay inay qabsatay xarunta golaha shacabka qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena haatan ku soo dhawaada isagii oo fidsan kulan uu golaha baarlamaanka Soomaaliya yeelaha maanta ayaa dib loo dhigay mar kale sababo la xiriira khilaafka wali ka dhex jira hoggaanka baarlamaanka warbixin umuurtaas ku saabsan waxa inoo haysa Saacadiyo Xirsi Bacood waxaa dib u dhac ku yimid kulan maanta oo Sabti ah lagu waday in ay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka kadib markii waqti dambe ee xalay laamaha amniga lagu wargeliyay in ay u diyaar garoobaan kulanka golaha shacabka isla markaana sugaan amniga laakiin warar xili hore ee saakay soo baxa ayaa lagu wargeliyay xildhibaanada iyo laamaha amniga intaba in uu dib u dhacay kulanka sababo aan la sheegin hase ahaatee warar soo baxaya ayaa sheegaya in uu wali jiro khilaaf adag oo u dhaxeeya xildhibaanada iska soo horjeeda lagana baqay in mar kale kulankaasi qalalaase galo ilaa xalay waqti dambe magaalada Muqdisho waxaa ka soconayay kulamo gooni ah oo ay lahaayeen xildhibaano madaxda sare ee dalka iyo saraakiisha hay'adaha amniga oo dhammaantood ku saleysnaa u diyaar garowga kulanka lagu waday in uu maanta qabsoomo isku socodka magaalada ayaa dib loo furay waxa ayna gaadiidku isticmaalayaan wadada Maka al-Mukarrama iyo guud ahaanba jidadka xirnaa 3 cisho ee la soo dhaafay inkastoo wali isgoosyada magaalada lagu arkayo ciidamo feejigan oo sugaya amniga laba qarax oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa maalintii shalay ka kala dhacay isgoosyada K4 iyo Banaadir kadib markii ay ciidamadu ka hortageen gaadiid qaraxyo sidee oo doonayay in ay xoog ku jiraan baro control oo ay ciidamadu ku lahaayeen labada isgoys dadka reer Muqdisho ayaa si weyn ugu dhagtaagaya halka uu saldhigan doono khilaaf muddaba soo jiitamaya ee ka dhashay mooshinka laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka oo wali si weyn uga biyo diidan sharci ahaanshaha mooshinka saacadihii ugu dambeeyay ayaa kulamo waxay ka soconayeen magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya kulamadaasi ayaa ahaa kuwo xal loogu raadinayay xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinkii ka dhanka ahaa gudoomiye Jawaari wararka soo baxay ayaa sheegaya in gudoomiye Jawaari uu soo magacaabo 7 xubnood oo la kulmi doona guddi kale oo dhanka gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xildhibaanada mooshinka wada ka imaanaya si ay xal ugu raadiyaan xiisada siyaasadeed ee taagan wararka ayaa intaasi ku daraya in kulan degdeg ah ku yeelanayaan Villa Hargeysa guddi ka kooban 14 xubnood oo ka kala socda labada dhinac ee kala ah dhinaca mooshinka wada iyo dhinaca ka soo horjeeda sidoo kale waxaa la sheegayaa in xubnaha guddiga 7 xubnood ee Jawaari magacaabay ay la kulmi doonaan madaxweynaha si ay uga arinsadaan xal u helidda arrimaha taagan iyo sidii sharciga loogu kala bixi lahaa dadaalada socda ayaa ka duwan kuwii hore ee fashilmay waxa aanay u badan tahay in laga gaaro xal ku jira tanaasul maadaama uu khilaafka laba dheeraaday isla markaana amni ahaan iyo siyaasad ahaan saameyn keenay kulamadan ayaa imaanaya xilli uu khilaafka siyaasadeed cirka isku shareeray iyadoo la rajaynayo in kulamadan ay ka soo baxaan qodobo ay isugu soo dhawaanayaan labada dhinac Saacadiyo Xirsi Bacood wararka wanaagsan Nairobi Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa booqday maanta caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya war umuurtaasi ku saabsan waxaa noo haya Avocado Maxamed Axmed Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Jigjiga Dr. Abiy ayaa kulamo la yeeshay madaxda gobolka waxaana sidoo kale uu khudbad u jeediyay shacabka wararka imaanaya Jigjiga ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha uu socdaal ku mari doono 9 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Itoobiya taasi oo ka dhigan in uu ahmiyad gaar ah siiyay gobolka Soomaalida oo muddooyinkii dambe isku dhacyo ka dhaxeeyeen qoomiyadda Oromada oo uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare Abiy ayaa safarkiisa waxa ku wehelinayay madax ka socota dawladda federaalka ee Itoobiya waxaana sidoo kale kulamo la qaadanaya oday dhaqameedyada Soomaalida si ay uga wada hadlaan xasiloonida amniga iyo sidii loo xalin lahaa isku dhacyada u dhaxeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada Dr. Abiy ayaa waxa loo dartay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaarihii hore ee Haile Mariam Desalegn oo culays kala kulmay dibadbaxyadii looga soo horjeeday dawladda Itoobiya sanadihii dambe oo ka dhacay dalka Itoobiya Avocado Maxamed Axmed wararka fiid wanaagsan Nairobi
midowga Afrika iyo AMISOM oo war ka soo saaray xaaladda siyaasadda kacsan ee Soomaaliya ayaa dafiray in AMISOM ay qabsatay xarunta golaha shacabka. warkaasina waxaa inoo haya Yaasir Cabdullaahi Kaahin. midowga Afrika ayaa war-saxaafadeed ka saaray xaaladda siyaasadeed ee baarlamaanka iyo dhacdada Arbacadii la soo dhaafay ka dhacday xarunta golaha shacabka. war-saxaafadeedka midowga Afrika oo soo saaray waxa uu qornaa sidan: dalku waxa uu marayaa xaalad siyaasadeed oo adag oo aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale loo yaqaan golaha shacabka waxay xilligan u kala qaybsameen laba dhinac. Is-haysadkani waxa uu gaaray Arbacadii heerkii u sareeyay iyo siyaasad ahaan lala xiriirinayo taasi oo keentay in ciidamada AMISOM ay farageliyaan iyagoo iskaashi la sameeyay ciidamada ammaanka Soomaaliya si xaaladda loo dejiyo ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan. war-saxaafadeedka sidoo kale waxa lagu sheegay ama lagu in midowga Afrika laga soo wacay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya isla markaasina loo xil saaray taageerista ciidamada ammaanka Soomaaliya si loo sugo ammaanka xarumaha hay'adaha qaran ay ku jiraan baarlamaanka Soomaaliya. midowga Afrika iyo AMISOM waxay tixgeliyeen madaxbannaanida shacabka ee Soomaaliya waxaana qirayaan xuquuqda iyo kalsoonida buuxda ee ay ku qabaan hoggaanka si looga hortago caqabadaha ka jira siyaasadda xilligan taagan ee lagu kala qaybsamay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. munaasabada waxqabadkooda ganacsiga ku soo bandhigayeen Soomaalida Kenya ayaa lagu qabtay xaafadda Islii ay Soomaalidu degto. warkaasina waxaa inoo haya Axmed Yuusuf Sheekh Cabdi. ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkani Kenya ayaa maanta cududooda ganacsi ku soo bandhigay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Aadan Barre Ducaale, xildhibaanka degmada Kamankunji ee xaafadda Islii laga soo doortay Yuusuf Xasan Cabdi, gabadha laga soo doortay magaalada Wajeer Faadumo Geedi iyo ganacsato fara badan oo kamid ah kuwa soo bandhigaya awoodooda ganacsi. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka hadlay goobtaas isaga oo baaq u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee khilaafku ka dhex aloosan yahay waxaana uu yiri: tiidiyada Soomaalida annaga waxaan nahnay madaxweyne Farmaajo iyo Cali Khayre iyo speakerka waa inay fiistaan waa inay wadanka dejiyaan qaylidaasi wadankaas la joojiyo wadamada Carabta oo UAE way tahayna lacagahan ay xildhibaaniinta iyo dadka ay ku hogeynayaan ha joojiyaan. wadanka Soomaaliya waxa uu tali Soomaali in ajnabi uma talinayo. markaa sheega wadanka uu tagay wadanka iyo qayli iyo qasaas iyo dhib iyo Kenya walaal bay yihiin waa isku diin waa isku qolo ha fariistaan ha xalliyaan inta ay ka isdagaalayeen Soomaalida masaakiinta ayaa rafacsan. bas asanteni sana asmali. dhanka kale waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameed kala duwan oo ay ka mid tahay ciyaarta dhaantada iyo kuwa kale. ugu dambeyntii waxaa dhankiisa ka hadlay isku duwaha dhinaca ammaanka ganacsatada xaafadda Islii Axmed Maxamed oo ahaa qabanqaabiyaha xafladan. magacaygu waa Axmed Maxamed xaafadda Islii waxa laga yaqaan security aniga ayaa soo qabanqaabay xafladan ballaaran oo maanta arkaysaan oo sida quruxda badan u dhacday. waxaana horta mahad gaar u celinayaa madaxa aqlabiyadda baarlamaanka wadanka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale iyo xildhibaankayga xaafadda Kamankunji Honorable Yuusuf Xasan Cabdi iyo permanent secretary-ga tourism Madam Fatima Hersi iyo xildhibaanada laga soo doortay Wajeer County Faadumo Geedi oo ka soo qayb galeen iyo runtii dadweynaha quruxda badan oo si sharafta leh iyo qaayaha badan uga soo qayb qaatay. mid labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saxaafadda runtii si qurux badan u qabtay arrintan waxay ku saabsan tahay in la soo caanbixiyo xaafadda Islii ganacsigeeda xoog uu leeyahay iyo wuxuu ku saleeyo iyo wuxuu ku fadhiyo. saa ogtiin xaafadda Islii waa xaafad ganacsi aad iyo aad muhiim u ah, xaafad oo aad iyo aad wadanka qiimo iyo qaayo ugu fadhido waaye. waa xaafad la yaqaano oo hataa dawladeeda hoose gabdhaha Soomaaliyeed ay chief ka yihiin oo madax ka yihiin. xildhibaankii waa Soomaali, MCA-ga waa Soomaali, chiefka arkaysan Jawaahir waa Soomaali. marka runtii anaga Soomaaliyeed waxaa la rabaa xaafadda inaan maartay aan si fiican oo si qurxinno oo si caan bixinno oo nabadeeda ay ilaalino bilacdeeda ay ilaalino. marka shirkan maanta wuxuu ku saabsanaa in la soo caanbixiyo ganacsatada. saa arkaysaan waxaa ka soo qayb galay ganacsiyaasha waaweyn Safaricom oo kale xaafadda Islii ganacsi weyn ay ka heshay, lacag badan bay ka heshay. Gulf Bank 2 branch ay ku leedahay. Golden Gate arrimo badan bay keentaa. Dahabshiil way ka qayb qaadataa. marka ganacsiyaal fara badan oo xoog badan ayaa ka shaqeeya xaafadda Islii. marka waxaan u baahannahay in oo maartay xaafadda Islii si wanaagsan oo ka bedelan
fikradda Soomaalida laga haysto in maartay u gadno isku soo wada duubo ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya ayaa ganacsi ballaaran ku leh guud ahaan dalkani Kenya iyaga oo kaalimaha hore kaga jira awoodaha dhaqaale nin Soomaali ah oo dil lahaa boqorada Ingiriiska ayaa xabsi lagu xukumay warkaasina waxa inoo haysaa Miski Maxamed Caate maxkamad ku taala dalka Britain ayaa shaacisay in xukun lagu riday muwaadin Soomaaliyeed kaasi oo lagu eedeeyay inuu qorsheenay inuu ku biiro kooxda Daesh isla markaana uu dilo boqorada dalka Ingiriiska muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aweys Sheekhi ayaa haysta dhalashada dalka Holland kaasi oo ka soo hormuuqday maxkamad ku taala London waxaa la sheegay in weerarkii lagu dili lahaa boqorada Ingiriiska Queen Elizabeth iyo ra'iisul wasaarihii hore UK David Cameron ay fashiliyeen sirdoonka UK Aweys Sheekhi oo 38 jir ah ayaa lagu xukumay sano xabsi ah booliska UK ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in Aweys ay tashkiilisay haweeney Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Raaqiya Xuseen isla markaana ay u ballan qaaday inay guursan doonto hadii uu ku biiro kooxda Daesh Martin Edmonds oo ah garsooraha maxkamad ayaa sheegay in dadka doonaya inay dilaan madaxda ee weeraradooda laga hortaga ay muteysan doonaan xukunka Aweys oo kale waxa uu sidoo kale tilmaamay in ay ku daba jiraan Soomaali kale oo lagu eedeeyay inay la socdeen falka lagu soo eedeeyay Aweys Sheekhi Miski Maxamed Caate wararka fid wanaagsan madaxweynihii hore ee Brazil ayaa maanta booliiska isku soo dhiibi doona kadib markii uu dhuumaaleysi ku jiray maalmihii ugu dambeeyay Lula da Silva madaxweynihii hore ee Brazil ayaa waxa gurigiisa hareereeyay ciidamo ka tirsan booliiska dalkaasi kadib markii uu bilaabay dhuumaaleysi uu kaga baxsanayo ciidamada booliiska booliiska ayaa waxay xaqiijiyeen inuu hadda ku sugan yahay dhismo ku yaala magaalada uu ka soo jeedo ee ka baxsan São Paulo isla markaana uu qorsheynayo inuu ciidamada isku soo dhiibo 72 sano jirkan ayaa lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah maadaama lagu helay eedeymo musuqmaasuq madaxweynihii hore ee dalkaasi Brazil Lula waxa uu aaminsan yahay in xukunka ka dhanka isaga uu yahay mid siyaasadeysan qareenadiisa ayaa la sheegay in booliiska ay kala hadlayaan sidii uu Lula isku soo dhiibi lahaa waxaana la soo sheegayaa in Lula uu doonayo inuu booliiska isku soo dhiibo maanta kumanaan taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay banaanka dhismaha uu Lula da Silva ku sugan yahay daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkeena fiid wanaagsan oo idin soo gudbinaya anigoo Saciid Galab Galeer inta aynu ku kulmayno warkan midkiisa xiga waxaan kaga tagaynaa aniga iyo Baxda Qari Joqod sidaas iyo nabadgelyo